dastuurka kumeelgaarka waxaana ansixiyey si kumeelgaar ah 2012 hadda waxaan maraynaa 2020 waxaan filayaa dad badan tusaale ay kusoo qaateen ama la dareemi karnaa nin meeyar ah oo la magacaabay oo magaalo Khartoum ah meeyarka iyo meeyar la soo doortay oo gobolka ama degmada markaasi soo dooratay tirada soo dooratay oo shacabka soo dooratay laba milyan ay yihiin midna qof uu magacaabay waxaan filayaa ninka la magacaabay keliya wuxuu daacad u noqonaa ninkii magacaabay laakiin ninka degmadaasi ay dooratay ama gobernatorahaasi ayay meeyarka doortay oo labada milyan ay dooratay wuxuu ka shaqaynayaa sida adeeg bulshada u horumarin lahaa oo berito xisbigiisii asaga oo markay soo sharxaan uu heli lahaa haddana muddo kale oo bulshadaasi u shaqeeya waddankan amniga heli maayo ilaa doorasho toosaa ka dhacda aad dareemi kartaan hadda waqtigii ugu dambeeyey 2016 odayaashii ergadii iyo xildhibaanada kala shaqeynayay guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa yidhi la gasheen waana lidinka xafiyo doorasho dadna haddaan aadno waxaan filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kale ugu muhiimsan waxaase oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aadayo waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn waddankan wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorashadadan in la aadayo ma jirto qodobka kale oo aan rabno in aan is-xasuusino heykal dowladeed dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejinta qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhamaystirno wixii shuruuca oo doorashada u gaari lahaa ee iskeedii iskama laha shaqadan aan soo qabanay shaqadaasna waa sanadaatan hadda gacantaan ku hayno ah wax ka bedelidda tariga axsaabta siyaasadeed hal qodobaa rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya lagama codayn karo runaan idiin sheegaa maanta waxaan idiin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo shacabkeeda doorashaa dhacaysa xiise weynay u qabaan doorashaa dhacaysa weynada tirada meel yani dadka codaynaya waa laga yaabi doonaa waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka u ansixiyey kan inaan ku socono aada umahadsantiin waxaan ku wareejinayaa guddiga arrimaha gudaha gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha afrika